shirkan oo u dhaxeeyay hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka ku-meel gaarka ee Soomaaliya sida guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka, guddiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka labadiisa aqal iyo wasaaradda arrimaha dastuurka, waxaana lagu falanqeeyay qorshayaashii la dejiyay ee loogu talagalay in la fuliyo sanadkan 2019. waxyaabaha diiradda lagu saaray shirkan ayaa waxaa ka mid ah sida ay u socoto tubta geedi socodka iyo dib u eegista dastuurka Soomaaliya, qorshayaasha kale ee harsan iyo caqabadihii lala kulmay sanadkan 2019. dooda kadib ayaa la isla qaatay ilaa 6 qodob oo ujeedadu tahay in lagu dardargeliyo howlaha ka harsan dib u eegista dastuurka ku-meel gaarka ee Soomaaliya. gudoomiyaha guddiga la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in laga maarmaan ay tahay xal u helidda caqabadaha horgudban qorshayaasha iyo dhimeystirka dastuurka ee loo asteeyay December 2019. ujeedada shirkan waxay ahayd in lagu daraasadeeyo, in dib loo eego, in dib loo qiimeeyo muddadii 2 sano ahayd oo la soo shaqeynayay iyo wixii la soo qabtay, wixii qabsoomi waayay iyo caqabadaha jira in la iska warsado. arrimahaas bay ahayd. ilaahay fadligiis waxaan maanta oran karnaa oon u sheegi karnaa ummadda Soomaaliyeed inay tahay maalin guul ah oo dastuurkii Soomaaliya muddada dheer ku soo dhac jiray oo laga hadlayay inuu marayo gabagabo. dhinaca kale wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa hoosta ka xariiqay in madaxda qaranka iyo wasaaraddu ay wadaan dadaal lagu dhameystirayo waxyaabaha ku xiran heshiisyada siyaasadeed ee dastuurka dalka. marka waxa inagu waajiba in arrinta la soo idlayo la soo dhameystiro inagoo og kana dheregsan miisaanka ay leedahay. dastuurku waa waxa kaliya u baahan in laga wada xaajoodo, wax intii sidii dictatorka aad qalin u qortaa dadka marsinaysa ma wada hadal iyo wada xaajood iyo isu tanaasul iyo Soomaali oo wada sawiran karta habka ay u noolaan doonto iyo qaran nooceed ay wada lahaanaysaa ayaa loo baahan. marka wax furudna maaha waxa iska oranayso dastuurku muxuu dhamaan lahayd. dastuurku dad buu u baahan yahay marka horeysa. dastuurka Soomaaliya oo ah arrin masiiri ah ayaa waxaa ku jira qodobo u baahan in la geliyo wada xaajood siyaasadeed, is-afgarad iyo isku tanaasul, iyadoo hay'adaha dastuurka u xilsaaran ay xaqiijinayaan geedi socodka dhameystirka dastuurka loo dhan yahay. Ibrahim Aadan Maxamed, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.